السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وهند حسن عليكم مقادير هند دقي جنالك داوني سينو هند دقي هدي أديكو عصبتا يسودو هدي أنكو عصبهينا يسودوي إنا سبسكرايب يسارتو أنا وحوين بيتاهي إنا لايك يسارتنا ديرقلنا يتاهي sidoo kaleeto inaad comment iga soo bixisaan waxaan dareemayaa in walaalkay uu ila joogo kor iyo hoos hadda iyo hadhowba adigan wax idinku ahay soo dhawaada maanta maxay idin hayaa barnaamijkay ka hadli rabaa waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij laba gabdhood oo caan oo walaalaheeya midna fanaanta midna youtuber make upper oo isku dhacay inaan dagaalkooda ka hadlo kolleyba ayaantan social media waxaa kusoo batay dad isdagaalayo dagaalka laba maado mid noqon karaa in labadan qof oo dagaalku uu dhabka yahay in la isku kala kacsanayo YouTube-ka ama baraha bulshada si qofka kale uu caawiyo xogaa views loo kala helo labada qof oo ay sheegayo waa Rasmi Rice oo ah fanaanada aad taqaanaan qaaliga ma sha Allah sidoo kale walaashay Soya oo ku naqaan in badan gabdhaha isla jooga inay magacabayso oo qurxiso Rasmi Rice oo ayadana ma sha Allah laba qof oo inta badan xitaa aan statuskooda ka arki jiray ayagoo maami isdhaayaan oo laba qof oo dabcan xushmad ay ka dhaxaysa yihiin markay waxa rabaa inaad kaga hadlo xogta yar ee aad kaga hayo labada qof soo dhawaada si aad barnaamijka ula socotid subscribe isaar aan ku bilowno Rasmi Rice wad ogtii waa qof wanaagsan ma sha Allah waa shalay qofkii keentay afkii aan shalay kugu amaanay maanta kugu caayimaayo wayna mudunta qof wanaagsan way tahay ma sha Allah kuleyba mar dhaweyd way nala joogi jirtay hadana dhanka ay Hargeysa naga aad way noo soo laabatay Soya ayadana sidoo kale qof amaan u baahan maahan oo dadka isla jooga way wada yaqaanaan waana qof youtuberada waxaan isdhihi karaa sidaan hadda xoogaal aan ku ahay yani aan ku ahayaan dhigina aan dad ka soo maqlay ay ku sheekaysanayeen in labada gabdhood isku dagaaleen meel dadka Nairobi jooga ay yaqaanay meel weyn la kireysto rasmina ay rabtay inay meel ay ka dhigato dhar lagu iibiyo ama shopping waxa Soyana ay rabtay meel make up inay ka samaysato kuleyba adduunka ayaa dadka walaalaha isku dirayso wana laga qurux badan yahay xitaa hadii qofka walaalka ah dadka Soomaalida inta badan waxay hadda u booteenba qof ayaad arkaysaa inuu qof u shaqeeyo markaas uu leeyahay walaal qaalihe lacag meeqo ku siiya $150 ana laba kaaga dhigay ka soo tag taasina waa dambi kuleyba sidoo kale labada qofood qofkii u horreeyay meesha soo kireystay ama lacag ka bixiyay kaasi ayaa xaq u leh ma ahan inuu qofka kale uu ka dab yimaado macaad Allah laba qofood oo saaxiibo aqoon isku leh waa laga fiicnaa in barnaamijkaasi ay sameeyaan Soomaalida sidoo kale waxay tiraahdaa god sirad ha qodin hadaad qodidna ha dheereen ku dhici doontid lama oge taasi oo macnaheedu tahay qof walaalka ah maanta hadii adiga aad shaqadiisii ka xuntahay ee godkii uu qotay aad ka daba dheereysay aad isku dayday inaad ku ridid Allah subhanahu wa ta'ala uu ku arkayaa ogow adigana waad ku dhici doontaa kaliya waxaan jeclaan lahaa labadiino heshiisa inaad soo wada fadhiisataan barihiina bulshada in maaragtay shalay wanaagi iyo aad kaga baranay laba qofood isku xiran oo is ixtiraamo maantana sidoo kale inaad isku ixtiraamtaan waa aniga walaalkiina hanado barnaamijkeedii la socodsiinay markastaba waxaan jeclahay inaan idin soo xasuusiyo walaal qaali subscribe isaara subscribe tana dhiirigelin ay tahay waana mahadsantiin sida wanaagsan aad ila socotaan